ku soo dhawow janalka galgalan news taabo calaamada guduudan ee subscribe kadibna ku dhufo gambaleerka si aad u heshid mar walba barnaamijyada iyo wararka aanu soo gelino galgalan news. استاغ kaliya inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha waxaan fursad uga faa'iideysanayaa inaan runtii aad ugu mahadnaqo shaqaalaha cusbitaalkan oo ugu horeeyo agaasimaha Cismaan oo runtii cusbitaalkan uu yahay cusbitaalka ay wasaaradda caafimaadka ku faanto runtii aad uga soo shaqeeyeen aad u mahadsan yihiin waxaan farxad weyn ah inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha ku soo dhaweeyo madaxweynaha wasiirka caafimaadka gaar ahaan oo marti loo yahay xildhibaanada saraakiisha wasaaradda caafimaadka maamulka gobolka iyo degmada xuqaasha nabadoonnada iyo isimada gobolka Karkaar dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan meelihii aan booqanaynay ka mid yahay cusbitaalka oo runtii sidii loo dhisay anigu aanan imaan waxaan aad uga mahadcelinayaa guddigii gacanta ku hayay dhismahan hirgeliyey waqtiga badan geliyey oo ugu horeeyo Cismaan oo runtii aan la socdo dadaalka uu ku bixiyay meelaha uu maray waxaan runtii u rajaynayaa intii wax ku darsatay inuu miisaanka xasanaad Ilaahay ugu daro waa tallaabo fiican oo dadka Soomaaliyeed guud ahaan cashar u ah haddaan isku tashanno wax badan baa qabsan karnaa inaan mar walba meel kale wax ka sugno waa ceeb bay nagu tahay waan rajaynaynaa inaan gaarno inay dad kale annaga na sugaan
dhul barwaaqo oo qani baan joognaa haddii aan waxa aan haysanno ilaahayna tuso intan iyo inka badan waan samayn karnaa waxaan aad ugu faraxsanahay in wax la sameeyo way sahlan tahay laakiin sida loo joogteeyey nadaafadiisa loo ilaaliyey iyo nidaamkiisa shaqo siduu u ilaashan yahay runtii ammaan bay mudan yihiin dhakhaatiirta iyo shaqaalaha iyo maamulka cisbitaalka iyo shacabka reer Qardhood oo gacan weyn ku siiyey runtii aad baan uga mahadcelinayaa waqtiga oo ciriira way habbooneed maanta dad badan oo mudan inay halka ka hadlaan waanan jecelahay cismaan waxaan jeclaan lahaa inuu kusoo noqdo laakiin waxaan rajeynayaa kelmadda shahaadada waa guddoonsiinaynaa dadkii ka qayb qaatay isagana insha allah mar kale mid kale guddoonsiin doonaa isagu ma soo diyaarin anaga u soo diyaarin doono marka